kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal si walba noo maqlaysan ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka Soomaaliya waxa kamid ah heshiis qarsoon oo dhex maray madaxdii ahlu sunna iyo madaxweyne Qoorqoor maxaa ka jira in madaxda dawladda ay arinta ka hortimid xog ayaan idinkaga hayaa saaxiibayaal xildhibaanadii Kenya ee yimid Muqdisho lana kulmay farmaajo lagu qabtay garoonka Wilson ee Nairobi madaxweyne ku-xigeenka Galmudug oo ku dhawaaqay in la dhameeyay tabashadii uu qabay madaxweyne Xaaf dhawaana la qabanaya caleemasaarka madaxweynaha guddoonka labada gole ee baarlamaanka dalka oo magacaabay guddiga diyaarinta xeer ka dhameystiraya sharciga doorashooyinka qaranka qarax ay askari ka tirsan militariga Soomaaliya ku dhinteen oo ka dhacay duleedka degmada Afgooye iyo Kenya oo duqeysay xarun ay Hormuud ku lahayd Ceelwaaq waa garab axada taariikhda ay ku beegan tahay 1 bisha 3 Maarso sanadka 2020 intaad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada saaxiibayaal markaana aan ku bilowna Dhuusamareeb oo heshiis qarsoon oo ku dhex maray madaxda ahlu sunna iyo madaxweyne Qoorqoor wararkii ugu dambeeyay naga soo gaarayay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa sheegaya in madaxda ahlu sunna ay diideen inay ka qayb galaan xafladda caleemasaarka madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor hogaamiyaha ahlu sunna Macalin Maxamuud Sheekh Xasan ayaa u baxay safar dhanka magaalada Garowe isagoo sii mari doona magaalada Gaalkacyo waxaana la xaqiijiyay inuu ku wajahan yahay magaalada Jidda ee wadanka Sacuudi Carabiya halkaas oo markii horeba deganaa Macalin Maxamuud ayaa si rasmi ah u diiday inuu ka qayb galo xafladda caleemasaarka taasi oo ka codsaday madaxweynaha dawladda taageersan tahay Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor Macalin Maxamuud ayaa Axmed Qoorqoor u sheegay inuu san suurtagal ahayn ka qaybgalka xafladda hadii lagu qasbana uu xafladda ka sheegi doono in balamaha looga baxay laguna qasbay inuu ka qayb galo xafladda dhanka kale Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo Sheekh Cabdirasaaq Al-Ashcari ayaa labadaba ka cudur daartay inay ka mid noqdaan xukuumadda cusub ee Galmudug sida ila wareedyo lagu kalsoon yahay waxa xaqiijiyeen warbaahinta madaxweyne Qoorqoor ayaa dadaal dheer ku bixiyay sidii madaxda ahlu sunna loogu dari lahaa xukuumadda cusub ee Galmudug balse xubnaha laga itaal roonaaday ahlu sunna ayaa diidan inay ka qayb galaan xafladda lagu caleemasaarayo madaxweynaha Galmudug iyo codsiga uga yimid Qoorqoor oo ah in golaha wasiirada ay ka mid noqdaan ugu dambeyn waxaa lagu heshiiyay in Macalin Maxamuud loo fasaxo safarkiisa Jidda iyo sidoo kale in Sheekh Shaakir Al-Ashcari loo ogolaaday inay sii wataan howlahooda caadiga ah sida casharradii diiniga ah iyo waxbarashada Axmed Qoorqoor ayaa Sheekh Shaakir iyo Sheekh Ashcari u ogolaaday ilaalo gaar ah oo ka tirsan ciidamada dawladda kuwaas oo mas'uul ka noqonaya amniga culimadaas maadaama ay jirto xurguf kala dhaxaysa al-shabaab markaana Kenya xildhibaanadii Kenya ee shalay yimid Muqdisho lana kulmay Fahad Yaasiin iyo Farmaajo ayaa lagu qabtay garoonka Wilson ee Nairobi ugu yaraan 8 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Kenya kana soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee Soomaaliya ayaa lagu qabtay garoonka Wilson Airport ee Nairobi kadib markii ay safar qarsoodi ah ku tageen Soomaaliya telefishinka Citizen ee Kenya ayaa wariyay xildhibaanadan oo hadda lagu hayo garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee Nairobi ayaa sabtidii diyaarad qaas ah ku tagay Soomaaliya iyagoo madaxweyne Farmaajo kala hadlay howlo sir ah oo aan la shaacin waxay ahaayeen ila wareedyo ayaa sheegay in booliska Kenya ay heleen xog ku saabsan in xildhibaanadaas ay Soomaaliya tageen kadib markii ay martiqaad u fidisay hay'adda sirdoonka Soomaaliya baarayaasha booliska ayaa doonayay inay ogaadaan ajadaha kulankooda Soomaaliya maadaama xiriirka labada dal Soomaaliya iyo Kenya uu aad u xun yahay 8 xildhibaan ayaa waxa su'aalo laga weydiinaya nooca safarkooda inuu ahaa mid rasmi ah oo dawladdu ogeyd iyo mid iyaga u gaar ah iyo sababta aan lagu wargelin afhayeenka baarlamaanka dhowr baabuur oo ay leeyihiin qaybta dambi baarista ee booliska iyo qaybta ka hortagga argagixisada ayaa goorsiga horeysay oo maanta ay tagay garoonka Wilson Airport iyagoo sugaya xildhibaanada wixii faahfaahinah waad la socon doontaan saaxiibayaal markaana wali waxaan ku guri jirnaa wararkii Galmudug Xaaf ayaa la ogaaday inuu la heshiiyay hogaanka dawladda aqoonsanta ee Galmudug madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciido u warramay VOA ayaa sheegay in heshiis la galeen Axmed Ducaale Geela Xaaf oo horay uga biyadiiday doorashadii Dhuusamareeb ciid ayaa carabka ku dhuftay in Xaaf oo sheeganaya inuu wali yahay madaxweynaha Galmudug ay ku qanciyeen waxyaabihii uu ka tabanayay sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahiyo qodobada ay ku heshiiyeen isagoo tilmaamay in si wada jir ah dhawaan loo shaaci doono wada hadalkan ayaa sidoo kale u xusay inay ka qayb tahay ballanqaadkii madaxweynaha maamulka Galmudug garabka dawladda Axmed Kaariyo Qoorqoor oo ahaa inuu dhameynayo dhammaan tabashooyinkii laga qabo maamulkiisa waa qayb kamid ah wada hadalka ballanqaadkii madaxweyne Axmed Kaariye waxaa naga go'an inaan la fadhiisano cid walba oo tabasho qabta si aanan u udubna Galmudug loo dhan yahay oo aan khilaaf
ku horgudbanin ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenka. ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay inay isku afgarteen in Xaaf iyo hoggaanka Ahlusunna ay ka soo qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Galmudug. arrimahan ayaa ku soo aaday iyadoo hoggaanka sare Ahlusunna ay isku dhiibeen dowladda kana tanaasuleen mowqifkoodii hore. Galmudug ayaa u muuqatay inay haatan gashay waji cusub oo ay u gudbeyso khilaafaadkii la degay maamulkaasi, waxaana talaabadan ay ka dhalatay markii dowladda Soomaaliya ay ciidamo badan geysay magaalooyin ka tirsan gobolka Galgaduud. aniga iyo madaxweynehayna Axmed Qorqor markii la doortay wixii ugu horeeyay ballan qaadnay waxay ahaayeen in aan dib u heshiis samaynayno dhinacyada naga soo horjeedana aanu qancin doono. shaqadii koowaad ee aan ku guuleysanana waxay ahayd madaxweyne Xaaf oo run ahaantii deegaankaana wax badan usoo qabtay. madaxweynihii soo horeeyey madaxweyne Axmed Qorqorna ahaa oo wax badan tabanayay inaanu tabashadiisii xalino. maantana dhammaan waxyaabihii uu tabanayay iyo waxyaabihii uu doonayayba waanu ka wada hadalnay, waanaan ka heshiinay. maalmahan soo socdana waad arki doontaa biyada shaacinta rasmiga hawshaas. khilaafkii dhanka annaga iyo madaxweynihii hore naga dhexeeyey waa xaliyey, si officially ahna waa loo shaacinayaa maalmaha nagu soo aadan. kadib waxaana arrintaas u dhex wadnay inaanu ayagana aanu la heshiino Ahlusunna waljamaaca oo ayagana deegaankan badan ka soo qabtay. dayo badan oo aanu samaynay oo si isku doonaynay waa naga fashilmeen. ugu dambeyn maantay waanu heshiinay, waana is afgaranay. hadda waxaan ku jirnaa diyaar garowga caleemasaar ugu midaysan yahay oo ilaahay adduunyada garbaheena ay kasoo muuqan doonaan madaxdii naga soo horjeeday. hadduu aan lahaa Xaaf iyo hadday aan lahaayeen Ahlusunna waljamaaca ay garbaheena soo fadhiisan doonaan ilaahay hadduu yiraahdo. ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa qarax khasaare dhaliyay waxaa lagu leeyahay duleedka Afgooye. warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaare ka dhashay qarax ciidamo ka tirsan dowladda lagu leeyahay gobolka Shabeellaha Hoose. qaraxu ahaa nooca minada ayaa waxaa lagu soo waramayaa in la leeyahay askar ku sugnay deegaanka Warmaxan oo hoos yimaada Afgooye. wararka ayaa sheegay in qaraxan uu geystay khasaare u badan dhimasho oo soo gaartay askartii la leeyahay. dhinaca kale Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi oo loo adeegsaday qarax miino sida ay ku baahisay baraha internetka ay ku leeyihiin. qoraalka ka soo baxay maleeshiyada Al-Shabaab ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in ugu yaraan ilaa 4 askari ay ku dileen qaraxaasi siday hadalka u dhigeen. weli ma jiro wax hadal oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dowladda oo la xiriira qaraxaasi iyo khasaaraha rasmiga ah ka dhashay. inta badan dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ayaa weerar dhabagal ah ku qaaday ciidamada dowladda iyo kuwa Amisom xilliyada ay iskaga kala guushayaan gobolka Shabeellaha Hoose oo hoostaga Koonfur Galbeed Soomaaliya, caasimadana dhowr kiiloomitir u jira. Kenya ayaa duqeysay xarun ay shirkadda isgaarsiinta Hormuud ku lahayd gobolka Gado. faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya duqeyn xalis dhexe diyaarado military oo ay leedahay dowladda Kenya la eegtay xarun ay shirkadda isgaarsiinta Hormuud ku leedahay gudaha degmada Cilwaaq ee gobolka Gado. duqeynta waa ahayd mid xoogan ayaa si gaar ah uga dhacday deegaanka Ciise Guur oo 20 kiiloomitir u jira magaaladaasi. mid ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda ee gobolka Cilwaaq ayaa u sheegay in ilaa 11 gantaal la beelsaday xarunta shirkadda Hormuud, isla markaana uu haatan socdo baaritaan ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. sidoo kale waxa uu tilmaamay in dadka shacabka ah ay la soo diristay cabsi ku aadan waxyeelo ka soo gaartay duqeyntaasi. Kenya ayaa sidoo kale uu ku eedeeyay sargaalkan inay ku xadgudubtay dhulka Soomaaliyeed, wuxuuna ku guudiyay inay jawaab degdeg ah ka bixi doonaan arrintaasi. ilaa iyo haatan waxaa dalka kama soo bixin dowladda dhexe ee Jubbaland oo ku aadan weerarkaasi la eegtay xarunta Hormuud oo ay leeyihiin muwaadiniin Soomaaliyeed. si kastaba ahaatee ma ahan markii ugu horeysay oo ay ciidamada dowladda Kenya ay burburiyaan xarun ay leedahay Hormuud, iyagoo marar badan cagta mariya xarumaha shirkadaasi ku lahayd gobolada Jubbooyinka, Gado oo dhaca koonfurta Soomaaliya. ugu dambeyntii guddoonka labada gole ee baarlamaanka dalka ayaa magacaabay guddiga diyaarinta xeerarka dhameystiraya sharciga doorashooyinka qaranka. guddigan oo xubno ahaan gaarayaan 17 xildhibaan ka kala tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, aqalka sare iyo golaha shacabka, ayaa shaqadiisu tahay inay ka shaqeeyaan xeerarka hoos imaanaya sharciga doorashooyinka qaranka ee dhawaan uu saxiixay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sida lagu sheegay warqadda sida wadajirka ay u soo saareen guddoonka labada gole ee baarlamaanka. xeerarka hoos imaanaya sharciga doorashooyinka qaranka ee la doonayo inay ka shaqeeyaan guddiga la magacaabay waxay kala yihiin xeerarka deegaameynta kuraasta baarlamaanka, xeerarka xaqiijinta qoondada haweenka ee soo galaya baarlamaanka, xeerka doorashada xubnaha labada aqal ee ka soo jeeda gobolada waqooyi Somaliland, iyo xeerka xuquuqda matalaadda gobolka Banaadir. sababta xeerkan looga soo shaqeynaya ayaa lagu tilmaamay inay tahay u sahlida codbixiyaasha inay doorashadu noqoto mid qaran oo la wada leeyahay sida sharciga doorashooyinka u lahaado mugiisa.
warqada labada guddoon ka soo baxday ayaa lagu sheegay in guddiga la magacaabay la shaqeynayaan guddiga doorashooyinka qaranka ee u idman qabashada doorashooyinka guud ee dalka isla markaana wada tashiyo ay la yeelanayaan madaxda dowladda, madaxda maamul goboleedyada, hay'adaha ammaanka dalka, daneeyaasha siyaasadda Soomaaliya iyo ururada bulshada rayidka. saaxiibayaal waa naga intaa warkii aad nagala socoteen haddii aan ugu cusub